هذا الكرئيس الوزراء خيري أيها إن أولى وريجي قصند مرن أو أي معناه دو تهاي إن دولة دي حسن شيخ أنا وحل عجا وتجين قصند الحق الدولة الصومالية. وعنو إن من هالكن أنا وين رئيس الوزراء كنقضي يدون أكون كدولة أنا العجو كجري. هسا هاتي وحا هذا الكاسي بيني هنتي دوري هراء قرن كنور فارح أو شيء إن قصند الدولة أي العجو كجرتي. سؤال وناكسن وزيركي هراء مالية دا أرنتا كهالي أنا هذا كهالي أنا وعد إيميجي معلكم كوهيا رئيس الوزراء وقلدامي مده كرو وإلدوف لعقتاسي 5 مليون وحوغا أكونك ويكجرتي قسند الدحي مالينكي مدحوينها لا دورتي مالينكي كلباها ayaan warbixin ka siiyay arintan markii uu xilka la wareegayna warbixin baan ka siiyay hadii qasnada dawladda ay lacag ku jirtay maxay dawladii hore u bixin weysay mushaaraadka ciidamada iyo kan shaqaalaha rayidka ah siyaasi Cabdi Bare oo horay ugu mid ahaan jiray xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidaas yiri horta sideeda waxaan ku qoslay markaad waxa la yaabtay artoofka lagu qoslaa moogta waa run su'aashaas ay weydiisay waxaan qirahayaa oo aan hoosta ka xariiqayaa hadalka ra'iisul wasaaruhu uu sheegay inuu hadal sax yahay oo uu san been ka sheegin maxaa yeelay nimanka mas'uuliyiinta hadlay anoo ixtiraamaya oo yiri 5 milyan baa khasnada ku jirtay 5 milyan haday khasnada ku jirtay maxay u bixin waayeen 9 bilood mushaarkii shaqaalaha maxay u bixin waayeen maxay meesha ugu haysteen xildhibaan fiqi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankiisa isweydiiyay cida ay rumaysanayaan in qasnada dawladda ay lacag ku jirtay iyo in ay marneyd shalay ra'iisul wasaaruhu maalin wuxuu yiri qasnada hal xabo uguma tagin haddana waxa hadlay wasiirkii maaliyadda hadlay 5 milyan baan bixiyay ayaa ku hanti dhowrkii baa yir 5 milyan baa ku jirtay yaa rumaysanaa marka ma hanti dhowrkii wasiirkii horaan rumaysanaa mase waxba kuma jirin baan rumaysanaa xildhibaanada baarlamaanka ayaa inta badan isweydiiya sababaha markii ay xilal kala wareegayaan xubnaha dawladda ay u shaacin waayaan wixii dhaqaale ah oo ay ugu tageen qasnada dawladda waxaan nala degay ee dib noo dhigay eena baabi'iyay eena kala firdhiyay ee cugdadna kala dhigay ilaa yoomana haadana xal loo laayahay walow uu xilligan muuqdo horumar wanaagsan oo dhanka isla xisaabtanka ah Zeena Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho